بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي با مهدوين ونسوكو بكرين أي أصبناتي لابد لباتن يشنتي بشي فبراير ومانتا لحية طبعا مانتا أي تاي مالين أحدا halkan waxaan rabaa inaan ka soo jeediyo anigoo Cabdullaahi Maxamed Jimcaale wada Soomaaliyeed dhowr qodob oo aan kulleeto waxyaabaha hadda dhacaya iyo waxyaabaha aan muddada badan ka soo hadlayaba aan ku taxliili doono insha Allah maanta xaaladda Soomaaliya meeshay marayso. Soomaaliya xaaladeedu waxay maraysaa meel fool xun oo qof kasta oo maanta damiir Soomaaliyeed leh oo maanta u jeedo Soomaaliya inay god madow ku dhacday, godkii madoobayna ay ku sii socoto. Almiina haddii inta godkii ay ku dhacdo laga soo qabto macnay haalaheed, laakiin god madoobay ku dhacday, godkii madoobeedna way ku sii socotay, way ku sii dhacday. waayo nimankii godkii madoobay ku riday ayaa weli waxay diyaar u sii yihiin inay godkii madoobay ay ku sii ridaan ayay u sii xaydanayaan. war taladan dhulka iska dhiga, war dadka la tashada waa diideen. qodobka ugu horeeya oo gelaya waxaa ka mid ah buuqa hadda dhex maray Axmed Ciise Guutaale hanti dhowraha Soomaaliya iyo qolada maxkamadda gobolka Banaadir. buuqa dhex bilowday oo shalay iyo maanta iyo socday ilaa hamiin hore yaan rabaa inaan ku bilaabo. waxaa la yiri wiilka waxaa lagu haystaa maxkamadda oo weeraray oo ataagay iyo xasan sheekh maxamuud macallin gurgurte ninka filada joogo weeraray. waxyaabahaasaa lagu haystaa, wax saasa ayaa meelaha lagu haayay. waxaan marka dhegaystay oo nin aan dhegaystay cod leeyahay Axmed Ciise Guutaale ayaa xasan dad saaxiibo oo ka dhiganayay ayuu warbixin siiyey, dadkiina warbixintii ka duubeen. dabcan warbixintiina xasan waa gaartay, warbixintii aan dhegaystay. horta dhaliisha ninka dhaliilay waxay u badan tahay wax loo jiga. waa dhegaystay anigu dhaliisha. haddii arrinta ou Axmed Ciise Guutaale wou saaray sawirkiisu, marka hadalkiisuna hadalku waa u ekaay. haddii ay sax tahay inuu isagu saas u duubay waxa uu ku dhaliilay waxaa ka mid ah heshiiska Itoobiya lala galay, waxaa ka mid ah dowladahan Turkiga iyo Carabta oo hadda ku ordaa, waxaa ka mid ah ciidankii Raas Gambooni la geeyey, waxaa ka mid ah maamada xasan oo lahay haddaan fillo 3 dabaqa iyo 4 dabaqa dhisa haddaan jiingada dhisaana ii taallaa adiga ilmahaada iskool geyso oo ku eedeynayo uu leeyahay xasan wixii loo doorto ma ahayn waxa uu ku hadlayay iyo wax kaloo tiro badan. waxaasoo dhan waa wax xasan soo sameeyey. laakiin xasan haddee arrintaas haddaan anugu Axmed Ciise Guutaale ahaa lahay arrintaasoo kale ma sheegeen. inaan tashir jaraa'id qabto ka tago anigoon xasan waxna cambaarayn waxna eedayn ayaa iga habboonaa lahayd. waayo wixii waan u jeedaa meesha sharci lagama rabo. mar haddaan sharci la rabinna war adigu aad soo sheegtaa waxba matarayso. sida uu yahay inaan kula joogo oo sharci darradaas isagala joogana macnay ahaa lahayd. labadii marka midna ma uusan samayn, dad uu saaxiibba ka dhiganayay ayaa marka hortooda ayuu madaxweynihii ku weeraray filada joogay. kuwaasuna isagii ay u gudbiyeen, arrintiina caro weyn baa ka dhalatay. marka hadday xataa waxa Axmed Ciise Guutaale sheegay kulli ay sax yihiin, meesha haddii sharci lagama rabo. mar haddaan sharci laga rabinna wax kastoo sharcigood sheegto qofu yeeli maydo. marka mar horena
وان كهضلو أحمد عيسى قوتالي ماري لو ديبايي هانتو دور كان كهضلي waxaan yiri Ahmed Ciise Guutaale waa nin wanaagsan anuuna adeeraan u ahay laakiin qabrata hantu dhowraha waa ninku inuu 60 iyo wixii ka badan ayaa hantu dhowro laga dhigaa waa inuu kalateer shaqo 40 sano sida caalamka sida hadda caalamka sida Afrika oo kale nimanka hantu dhowrayaasha waa 70 jiro waana professor marka ninka marka hantu dhowraha kun shaqa laga rabaa kun shaqo waxaana kun ka shaqa fuli kara nin da'diisu ay 65 gaartay marka dad qabiilnimo igu soo qamaamay waxay ii qaateen inaan ninkan anu qabiilnimo aan ku yuraarayna Ahmed Ciise Guutaale anuguna isku qabiilaan banaho adeerkiisana laakiin waxa meesha ka socda iyo dadkan shaqada u dhiibaan aqoon u leeyahay asna waa nin dhalinyaro waana dadka soo ifa oo mustaqbal kale dadka soo ifa oo mustaqbal kana haday dad oo gangisara ay dhaxgalaan way ku dhax fashilmayaan waayo khibrad isaga badbaadiyo khibradaada yar marka arintii marka maalintaas nimankii ugu dhaganay yaa haddana saaka waxay leeyihiin ninka xilkii lagama qaadi karo ninkii xilkii u dhiibtay yaa la isweeraray marka waxaan ku talinaa in arintaas qabiilka laga dhaafo iyo qabyaaladda qabiil meeshaanayna dhigtay Ahmed Ciise Guutaalena shaqadaas 100% waa uga dhamaatay taa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan galo horta Soomaaliya ay su'aalaan rabaa inaan idin weydiiyo annaka ma waxaan rabnaa dukaan nin leeyahay xafiis nin leeyahay mashruuc nin leeyahay maxuu ahay madaxtooye nin leeyahay baarlamaan nin leeyahay wasaarad nin leeyahay maxuu ahay ciidan nin leeyahay inaan niraa waad iyo banki nin leeyahay oo marka uu rabana asagu waxa uu rabana u dhigaa waxa uu rabana kala baxaa inaan niraa waa dawlad miyaan rabnaa mase dawlad Soomaaliyeed aan rabnaa horta Soomaali jawaabaan ka rabaa maanta aniga markaan ku hormaro aniga waxaan rabaa dawlad Soomaaliyeed oo system iyo sharci laakiin dawlad shakhsi leeyahay anigu ma rabo dawlad junfaleedahana ma rabo dawlad qabiil leeyahana ma rabo waxaas horaan ugu daalnay dalkanagii weynaayo xoogga badnaayo oo maraakiibta lahaay oo diyaaradaha lahaay oo bangiyada lahaay oo jaamacadaha lahaay yaa wixii markii qabiil loo bedelay yaa dawladnimadiisaas nooga fashilantay noogana burburtay kadibna dawlad rasmiya oo caalamka la faltanta waa noqon weynay waxaana keenaa waxa isaga kaana khaldan qabiilnimadii iyo dawladnimadii isaga kaana khaldan ninkaan anoo ugu qabiil yahay qabiilniman ku rabaa ninkiina qabiilnimadii uu dalkii ku dumiyahay marka taas waxaan ka rabaa Soomaali inaan iska tayno hayaanka qaxa baraka'a dhibaatada inaan iska tayno ayaan ku talinaa dalkanaga inaan iimaansano hal subax aan ninka madaxweynaha haddii uu sharciga ka gudbo kulli inta dadku kacaan aydan ku soo laabo sharciga wariyaan hal subax in sharciga kulligu soo laabo dadka ayaa laakiin aqoontoodu 85% dadka Soomaalida khibrad dawladeed ma laha Soomaalidu khibrad qabiil iyo khibrad qabyaaladeed ay leeyihiin saasaana dalkii dawlad ku noqon waayay dadka anigu aan ka mid ahay oo aan qabiilka waxba ku falayn ilaa 91 Soomaaliya way la qabsan waayeen waxayna kula qabsan waayeen dadkii waxay rabaan xoolo qabiil lagu dhaco xoolo xukun lagu dhaco xoolo dal qabiil lagu dhaco oo dal lagu afduubto oo la yiraahdo anaa dalkan qabsaday ciidan qabiila madaxweyne qabiila wasaarada qabiila baarlamaan qabiila ayaa qolo walba rabtaa qofkii dawladnimadii ku soo marka barbaaray oo xilligii dawladii soo barbaaray waxaan hadda maanta jooga oo fawdada iyo missionary-ga wuxuu raba dhaca marka uma dul qaada karin marka warka waxaan ku soo gabagabaynaa annaka dawlad waxaan ku noqonaynaa inaan qabyaaladda iska tuurno ninka
danaystaha oo furayaasha jeebka ugu jiraan oo markuu tagaana xiraha dalka markuu soo laabtana meeshuu rabo furaha waxuu rabana qaadana dadkana barakicina dadkana baabi'ina dadkana maaragtay qabyaaladda iyo dhibaatada ku dhaxaya dadkana kala sooca waxa uu saxiixana aan aqoon u lahayn waxa berri ka imaana iyo nin dalkaadii raba inuu qaato oo ewal dhulkaadii qayba haystay haddaad haddana qaybihii kale u saxiixdo dee dalkii dhamaayaad siiday adigu berri waa dhiman kartaa xilka waa ka tegi kartaa saxiixiyow la soo baxa markaasuu leeyahay madaxweynihiinnii waxaan ii saxiixa wixii baarlamaan la horgeyn maayo saxiixii golo wasaaradood la horgeyn maayo maxkamad la horgeyn maayo marka wixii marka dhibaatadaasaa taagan waxaan ku daba marinaa ayaan dhoweed wiilkii lalahay sayid cali yaa gabar lalahay luul cabdicasiisa oo qabaya waxaa la yidhi wiilkii gabadhiyo gubay maxkamadda gobolka banaadir la geeyey maxkamadda saraa la geeyey kulli waxay ku xukumeen wiilkii inuu gabadhii gubay reerkii gabadhii ka dhalatana inay diyo qaataan waa diideen xasan wiilkii iyo reerkii inuu isku jiido oo odatinimo sameeyo oo yaa war diyo qaata adeerayaalo gabadhii waa dhimatay asaga iska deeya ma samaynayo inuu ninkii toogtana samayn maayo waagii baryaba shiddaa taagan waxaa la raadinaa lama yaqaano cadaalad darraa meeshii taalla qabiilkii gabadhoodii dhimatay waa madluum nabi maxamedana yidhi walaalkaa garya gardarraba u hilli ow daaliman ow madluuman hadduu daalin yahana daalinimada ka qabo u yidhi nabigu hadduu madluum yahana isgarab taag nimanka gabadhoodii gubatay in la isgarab taago oo ama diya la ogolaysay ama ninkii loo toogto waa la diiday saasou xasan meeshii ku hayaa dadkii oo barakicinayaa dadkiiyaa la dhacayaa 200 kun oo qoysaa la baaba'shay dadkii shalad dhisay oo siyaasiyiinta ah iyo dadka odayaasha ayuu yidhi xamar shir kuma qabsan kartiin mana ogoli haddaad shir qabsaydiinna waa inaan shirka anigu aad waraaqiga soo qaadato war waraaq maxaa lagaa qaadaan ninkan waa nin siyaasi oo madaxweyneu soo maro ra-iisul wasaareu soo maro waa xildhibaano waa walaalka oo xisbiyow leeyaho markaasuu yidhi maba shiri karti xisbiye isu tagayo shirayaa la weeraray oo dadkoodii la laayay meesha saasaa lagu hayaa fawdadaas iyo dhibaatadaas dadka soomaaliyeed waxaan ku daba marinayaa anigoo ah cabdullaahi maxamed jimcaale oda soomaaliyeed aad i og tihiin inaan ahay nin ummadda soomaaliyeed ay u sinan tahay u dagaalama aan qabiil u doodayn qabiilna aan cadaalad darre ku raacayn qabiilna wax ku falayn oo la wada og yahay shala markaan farmaajo diiday dadku waxay u qaateen inaan farmaajo ku diidanahay qabiilkiisa oon leeyahay igu qabiil maaha xasan markaan diiday oon idhi xasan iyo farmaajo waxba kuma kala bedelna dhabbihii farmaajowna ku socdaa ayaa dad badan oo waxgarada waxaa u caddaatay inaana qabyaaladiiste ahayn saasaa dad badan oo soomaaliya ay iiga qanceen marka waxaan ku talinaa anoo oda soo jiriin ah in dalka la badbaadiyo xisbiyada dagaalama in gacan la siiyo xisbiyaduna waa inay keenaan hadaf dalka lagu badbaadiyo xasan iskala dagaalama meesha ka eri waxba tari maydo xisbiyadu waa inay midoobaan waana in hadafkii xasan dalka looga qaba lahay la sameeyo maamul goboleedyaduna waa inay isu tagaan dhammaan waa inay ummadda soomaaliyeed sabaabusho dalka iyo dibadda ninkan dalka waa in laga gaaro dalku khatar uu ku jiraa gacantanadou ka baxaa 91dii inuu ku laabto layslaayo ayay ku socotaa ilaahay soomaaliya firad ha u furo ilaahay waxa soo socdo dhibaatada ha naga koriyo soomaaliya walaala oo xalaala oo hoggaan xalaala leh oo xaqa ilaahay rabta allaha noo keeno imtixaanka allaha naga qaado anigoo cabdullaahi maxamed maxaale oda soomaaliyeed ilaahay ducadaas ha iga aqbalo saasaana ku dardaarmay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu